السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى maanta waxaan reaction ka sameynaynaa video oo coach keena Mofid bartiisa TikTok oo soo dhigay dabcan hormonal imbalance-gana ka hadlayo videogan muhiimadda aan ka leeyahay waxay tahay waan arki doontaan wax badan waan ku raacsanahay coachka Mofidna waa taqaanaa nin caana dabcan Mofid supplement ninka iskale sidoo kale tana markay noqoto la isma xaqiro magaca Soomaali ee fitness marka la maqlo kamid ah dadka ugu horeeya dadka maskaxdooda ku soo dhaca waxaan rabaa videogan reaction fikradeyda iyo anoo proofkeeda la imaanayo inaan hormonal imbalance-ga coachka qaabka uu u treat gareeyay aan kaga soo horjeesto marka no hard feeling insha Allah taala asla socono waxyaabaha ugu weyn oo qofka miisaanka uu ka dagaynin marka uu ku jiro weight loss waxa kamid ah in hormoneskaaga ay qaldan yihiin boqolkiiba boqol tan oo ku raacsana wuxuu dhahay waxyaabaha ugu horeeya qofka keeni kara inuu miisaan ka dagi waayo waxa kamid ah in hormonaadkaaga ay qaldan waxa ogaataa ka soo bilaaw gaajada ku qabanayso ila director dareenka qofka bini aadanka ah moodkiisa fat storage-ka in fat lagu kod gareeyo amaba fatka meesha oo ku jiro uu ka soo baxo regulationkaas aad arkaysid hormonada sameynaayo dabcan haday imbalance noqdaanna wax ku shaqeynaayo malahan waxyaabaha hormoneska waxa kamid ah hurdo fiican heshid stress controlshid habeenkii marka seexatid hormone imbalance hadaa ahaan jirto hormonka uu fiicnaana meeshan wuxuu leeyahay waxyaabaha hormonaadkaaga sixi karo ama imbalance-ga aad ugu bixi karto waxa kamid ah qofkii inuu habeenkii hurdo fiican helo aamin hal habeen ay hurdo xumo kugu dhacdo boqolkiiba boqol oo ku raacsanahay tan hal habeen ay hurdo xumo kugu dhacdo cortisolkaaga hay noqonaay insulin spike-ga noqonaysa hunger hormones-ka kugu badanayo waxaana laga yaabaa craving tiro badan inuu kugu soo baxo waa hal habeen oo hurdo la'aan kugu dhacday in hormonaadkaaga ay sidaas noqdaan marka hurdadu waa number 1 marka wax kala dhan laga soo tago laakiin hadaa qof dhafra hadaa qof fadhigiisu badan yahay cunto xumo labadii saac wax yar cunaayo misbedelis meeshan wuxuu leeyahay hadaa qof dhafra qof fadhigiisu badan yahay hadana cunto xumo ku darsaday waliga isma bedelaysid isdaalinin miisaanna ma ka dhacayo jirna ma dhisanaysid 100% hadana meeshan coachkan ku raacsanahay wax shakiyana kuma jiro haday inta iskugu ka tagto waxba isdaalinin wax iska ka bedelayo malahan labadii saac wax yar cunaayo misbedelis sidaas la adigeed waa muhiim in labadii saac ilaa 3 saac gudahood wax cuntid laakiin wax yar aan cuntid mid kale hurdada waa inaad ku dadaashid iyo aamin meeshan waa marka meeshan coachku ku haysan wuxuu dhahay waa in labadii saacadood ama 3 saacadood gudaheeda aad wax cunto hadii kale waliga isma bedelaysid waana meesha ku kala tagayna aniga coachka waxa ogaataa 2 saacadood iyo 3 saacadood inaad gudaheeda wax cunto marka horeeto hormone imbalance ma fix gareyso bal dadka qaar way ugu dartaa wali meesha ugu daranay gaarsiisa waxaan rabaa inaad ogaato mar walba aad cunto marka laga reebo cunooyinka faatka mar walba aad cunto cuntadaas protein noqon kartaa high protein diet noqon karaa amaba waxay noqon kartaa carbohydrate insulinkaaga spike inuu sameeyna wuu kaca inuu kaco oo hawada ku shareermana oo waxyaabaha imbalance-ga keenaya kamid ah mar walba uu kacona jirkaaga way ku adag tahay in fat uu gubo ogow insulinka mar walba uu kaco dabcan wuxuu isku dayayaa inuu blood glucose-kaas ee jirkaaga kacay uu hoos u dejiyo mar walba hoos u dejinayana waxa ku qasban yahay inuu jirkaaga cuntadii soo gashay uu isku dayo inuu furahi dhamaayo furaayo waay unugyadaada furfuro unugyada sida cuntadina sida ku siiyo ogow marka keedkaaga inaa isticmaashid ayadoo insulin spike uu jiro way kugu adag tahay cuntada marka 2 saacadood iyo 3 saacadood gudaheeda la cunaa gaar ahaan markaad miisaan iska ridaysid tala fiican maahan waana outdated yani waa wax qadiimi ah oo horey loo isticmaali jiro hadda laga soo tagay hormone imbalance hadaa tahay I swear fit family miisaan ma ka dagaag marka waa muhiim inaad hormoneskaaga saxdid hurdadaada saxdid labadii saac wax yar cuntid baahiya isku dilin marka wuxuu dhahay coachka qofka intuu hormone imbalance yahay wax miisaana kama dhacayo yes waa sax laakiin 2 saacadood iyo 3 saacadood gudahooda wax cun baahinaha isku dilin taasa xogaa yar waxa ah fikrad yani dadka badankood aanan u shaqeynayn gaar ahaan markay miisaanka iska ridayaan tusaale hadda cortisolka iyo dheefshiidka kale marka uu fiiriso hadduu jirkaaga already daalan yahay ama tusaale ahaan
cortisolkaaga uu kacsan yahay haddaa maanta oo dhan labadii saacadoodba jirkaaga cunto ay soo gasho oo haddana dheefshiidkii aad ugu darto waa stress kala waay balance ma la dhihi kara marka waa overload waay taasoo kaleete jirka adaaba stress kala gelinayo 3 hormoonadan gaajada loogu talagalay markaad constant wax u cunaysid oo maanta oo dhan labadii saacba wax aad cunaysid jirkaaga wuxuu kala garan weynaa markii dambe goorta uu gaajo wax u cunaayo iyo goorta uu caadi wax u cunaayo maxaa u shaqeynaya marka qofka markuu hormonal imbalance yahay 3 miil ha ka badinin quraaco khaday cashay snack ma u baahan tahay dabcan haddii aadan gaajo dareemeynin miisaan inuu kaa dhaco way kugu adkaanaysaa jirkaaga mararka qaar inuu gaajo dareemo waa la rabaa يعني gajadan waalida ah oo anaga aan sameynayna looma baahno laakiin waxa la rabaa mararka qaar jirka inuu gaajo dareemo li'annahu inuu jirkaaga gaajo dareemo yu storage-kiisa ku isticmaali karaa laakiin jirkaaga mar walba uu gaajo dareemo haddaad cunto ku shubto aamin wax miisaan ka dhacay malaha 4 isku day subaxwaaga markuu ku bariyo kaleete in aad high protein diet ku bilowdo ama high protein breakfast ku bilowdo tabcan sidoo coach-ka ba sheegay aad muhiim u tahay li'annahu protein-ku waxyaabaha ka caawinaya waxay tahay satiety-ga waa dharkiisa caloosha ku buuxsamayso sidoo kalena jirkaaga wixii uu u baahnaa wuu ka helay iskuna day khadadaada iyo cashadaada markay ugu yar tahay inay 4 saacadood u dhaxayso jirkaaga fursad sii oo cuntadii hore aad ku shubtay uu ku xaliyo haddaad ka fursan weydina hal snack oo yar oo at least Greek yogurt oo kaleeta ah laba dhaxdooda geli laakiin 2 saacadood iyo 3 saacadood gudaheeda inaa wax cunto dabcan fikrad fiican ma ahan kama dambeyn marka inaad hormonal imbalance aad ka hor imaato ama imbalance-ga aad hormoonaadkaaga ka saarto macnaheedu ma ahan inaad 2 saacadood ama 3 saacadood gudahooda aad wax cunto waa inaad hurdo fiican hesho stresskaaga inaad controlsho cunto nadiif ahna aad cunto fududay insha Allah ta'ala keep it simple jirkaaga uu kaaga mahad celinaa walaalka ku safriya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh